Horumarinta aragtiyada cusub ee ganacsiga ee ku soo xoogeysanaya Muqdisho ayaa keenay in waqti dheer kadib xeebaha loo dalxiis tago laga arko doon dalxiis oo casri ah oo ay u dhameystiran yihiin adeegyada fududeynaya in lagu nagaado. Waxaa jira doono yaryar oo ka shaqeynaya xeeliga xeebta kuwaasi oo dadka qaada badweyntan ugu geeya doonta dalxiis. Waa shaqo abuur laba dhinac ah. Mar waxaa ka macaasha dhalinyarada doomaha yaryar wata, marna waxa ay shaqo abuur u noqotay kuwa doonta ka shaqeeya. Cabduqaadir Maxamed Ibraahim waa milkiilaha doonta. Waxa uu ka sheekeynayaa sida ay ugu dhalatay in xilligan loo baahan yahay doon dalxiis oo casri ah. Waxa uuna aragtidan ka soo maanguuriyay doomaha dalxiiska ee caalamka. Waxa uu tilmaamay macaamiisha doonta in ay aad u soo badanayaan waqtiyadii dambe. marka waxaan arkay baahi ka jirto liido sida doomanka yararka dadka qaataan oo meel dhow gaaraan ka soo noqdaan. waxaan ku fikirnay aniga oo fikirkan igu dhaliyay asxaabteeda ay ka mid yihiin Aamino Maxamed iyo Nuur oo Dubai joogo oo arintan anagana u dabagalnay inaan sidaan u asaasi lahayn aan u sameyn lahayn doon ka fikirta baahida dadka inay si dalxiis u raacaan oo maqaayad ah oo muddo saacado badda ku maqnaa karto. ayadiina waxaan ugu qaadatay muddo 5 ilaa 6 bilood sameynteeda. waa wax aan scratch ka bilownay eber ka bilownay macnaha. waxaan la hadalnay qaar ka mid ah dhalinyarada u soo dalxiis tagay waxa ayna ka hadleen waqtiga ay ku qaadanayaan halkan iyo daawashada xeebta qurxoon. waa ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo dadkii ugu horeeyay meeshan yimaada. waana barnaamij aad u wanaagsan oo loo sameeyay dadka raba inay waqtigooda kaga faa'iideystaan ama ku qaataan waqtiyada ay firaaqada yihiin. runtii waxaan leeyahay qofkii fikradan sameeyay ama curriyay ama barnaamijkan keenay waxa weeye aad buu ugu mahadsan yahay. dadkuna waxaan rajaynayaa inay ka faa'iideysan doonaan. magaaladuna way u baahan tahay sometimes meelo ay dadku ku nastaan ama ay familiyadooda keenaan ama ciyaalkooda ay keenaan. aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo doontan aad u quruxda badan. waxaan meeshaan u imaanay inaan farxadda ku qaybsano. aadna waa ugu faraxsanahay inaan hawo macaan ku qaadano iyo jawi aad u macaan. waxaan rajaynayaa insha Allah in shacabka kale iyo dhammaan dhalinyarada dhan ay ka soo qayb gali doonaan ee kulli wada imaan doonaan insha Allah. aad baan u soo dhaweynayaa arintan doonta waana loo baahnaa. marka dadkii fikirkeeda lahaa waxaan leeyahay fikir guuleystay ayaad la timaadeen. waana ku faraxsanahay inaan qabowgan iyo farxadan aan ku qaadanayno badda dhexdeeda oo kafeegii, shaahi, cabitaanadii, keegii wax kasta meeshaan aad ka helaysid waqti badan aad ku qaadanaysid. waxay ugu duwan tahay doontani doomihii hore. waa maqaayad guurayso oo badda dhex degan. Aamina Cabdikaasim Cabdiraxmaan waa maamulaha doonta. waxa ay ka hadlaysaa sida loo maareeyo dadka doonta u soo dalxiis taga loona soo dhaweeyay maadaama mararka qaar dad badan oo doonta buux dhaafiya ay yimaadaan. doonta waxyaabaha ay dadka uu service-ka u qabanayso waxaa ka mid ah dadka waa lagu soo dhaweynayaa. waxay siinaysaa cunto waa sida maqaayad oo kaleeto. qofku markuu soo fadhiisto wuxuu dhiibaa $5 fadhiga $5 waaye. markuu cuntada cunaa cuntada maqaayad waxa oo si caadi cuntada u iibsanaya. waxaa jirta mar la qaadayo $15 oo dadka la socodsiinayo xeebta lagu wareejinayo si dalxiis ahaan. mar kale waxaa jirta oo dadka la wadaayo oo la geynayo jasiiro. ina waa lacag kale ina waa $30. markay dadka bay group ahaan iskugu xireeyeen. qofka halkan yimaada waxa uu ku qaadan karaa saacado badan isagoo aan wax caadis dareemin. doontu waxa ay leedahay maqaaxi dadku ay ka heli karaan cunooyinka fudud. mararka qaar dadka doonta soo raaca waxa loo dalxiis geeyaa xeebaha jasiiro iyo warshiq. doontani nooceeda wali laguma ana arag guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo xeebta Liida ee imika ka howlgasho.